wixii halkaasi ka yimaada ee mas-uuliyad darradaasi ka timaada waxa dhabarka ku qaadan doonta xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wax kale oo na maraya meydka labada habeen yaalla waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland in waqtigii aad qabsateen wasaaradda arrimaha gudaha iyo jananka bileysku waqtigii ay qabsadeen uu fuli waayo nin walba tuuladiisu joogi doona haddii 24 saac gudahood ninkii loo keeni waayo oo ninka meydka talaajada ku jira loo kala leexi waayo wixii xagga ka yimaada anagu mas'uul kama lihin dawladana waan ka warsuganaa waqtigii iyo muddadii ay qabsatay saacadaha haray saacadaha wixii ka dambeeya cidaan ugu aaraniyo cidaan wax kaga qabanano annaga isweydiinayna waan ognahay halkani waa deegaanka Kalabaydh ee ka tirsan gobolka Gabiley waxa maanta shir jaraa'id ku qabtay qaar ka mid ah qoyskii uu ka baxay Allah u naxariistay tariyihii turbataariyada ee lagu dilay degmada Xariirad habeen saddexaadkii waxaanay eheladani oo la hadlay telefishinka Honka Ibal sheegeen in ballantii ay u qabatay xukuumadda Soomaaliland ay saacado kooban ka dhiman yihiin waxay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland in si degdeg ah dilkani looga hawlgalo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa maanta waxa halkan naskuukaayo keenay intan oo dada isku soo saaray waxaanu rabnaa inaanu ka hadalno dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday degmada Xariirad dhacdadaasi oo ahayd dil fool xun oo loo geystay taliyihii ilaalada cashuuraha ee kastamka Xariirad oo uu geystay xeeriyaaliyihii degmada Xariirad waxaanu halkan ka gudbinaynaa fariintaasi oo ah mid ku socota xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha fariintaasi oo odhanaysa in ninkii dilka geystay muddadii ay odayaashu u qabteen lagu keeno isla markaasina ah xabaasha loo kala weeciyo hadday taasi dhici weydana wixii halkaasi ka yimaada ee mas-uuliyad darradaasi ka timaada waxa dhabarka ku qaadan doonta xukuumadda gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wax kale oo na maraya haba yaraata hasa badnaatay ma jirto waxaananu leenahay ninkii dilka geystay halla keeno xabaashana ha loo kala weeciyo taasi to aan ahayn oo halkaasi na marasa amaanu aqbalayna ama aanu yeelayna ma jirto iskuuneed maanta dilka ka dhacay Xariirad oo ah ninkaas Saciid Xasan Xaaji oo taliyaha ilaalada ahaa maxaan ku raday cashuuraha ee Xariirad oo dil lagu toogtay halkaas oo uu toogtay ninka ilaalintii waxaan doonaynaa meydka labada habeen yaalla waxaan u sheegaynaa dawladda Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland in ay si degdeg ah sida odayaashu sheegeen in la noo keeno oo gacan ku dhiilan noo keeno xabaashana loo kala leexiyo wax kale oo meesha yaalla ma jiro halkan isku kaayo keenay dhacdadii foosha xumayd ee ka dhacday degmada Xariirad ee lagula kacay taliyihii kastamka turbataariyada Saciid Xasan Xaaji Ibraahin Ilaahay ha u naxariiste ugu horeyn waxaan taasi tiiraanyada u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehladii uu ka baxay marxuum Saciid mar labaad waxaan taasi u dirayaa ciidamadii uu ka tirsanaa maanta waxaanu halkan iskugu nimid ee go'aanka iyagu yahay sidii loo dilay Saciid xukuumaddu uga hawlgad ninkii ma hayno dilka geystay eheladiisina ma hayno xukuumadda ereyada nagaga soo baxayna kuwa aanu u qalanno iyo kuwa aanu qaadanayna midna maaha waqtigii aad qabsateena saacado yar baa ka harsan haddii ay dhici weydo in waqtigii aad qabsateen wasaaradda arrimaha gudaha iyo jananka bileysku waqtigii ay qabsadeen uu fuli waayo nin walba tuuladiisu joogi doona cidda aanu u qabanaynana waanu garanaynaa sharcigana anaga farhayaga ku qaadan doona warso intaas laba ogin wax kaloona marayaa ma jiro waxaanu digniin mar labaad u diraynaa cidda amniga haysata iyo cidda ka mas'uulka ahayd ee qoyska ka soo jeeda maanta marka laga bilaabo 4 saacadood kadibna wadadaasina furnaan mayso ciidanbana amni ku mari mayso nin walba tuuladiisu joogi doona ilaa loo kala rogana waxna maraya ma jiro dilka foosha xun la dhacay ee ninkii dilayna aan la haynin haddii arrimaha guduhu wax ka qaban waayaan arrinkaasi gacantayada ayaan ku aarsanna sidaana waan isku raacsannahay ninkaasi oo la keeno oo xabaasha loo kala rogo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaanu xaggan u jeedinaa baaq dilkii foosha xumaa ka dhacay degmada Xariirad ee ninkii sida foosha xun loo dilay Saciid ee taliyaha turbataariyada waxaan leeyahay sidii dilkaasi u dhacay loogama hawlgelin xagga waxa jira in la dhayalsaday lama hayo ninkii gacan ku dhiiglihii dilka foosha xun geystay dadkiisina lama hayo taasi aqligal maaha wax aqligelaya maaha waxaan leeyahay laamaha amniga wasaaradda arrimaha gudaha haddii 24 saac gudahood ninkii loo keeni waayo oo ninka meydka talaajada ku jira loo kala leexi waayo wixii xagga ka yimaada
annagu mas-uul kama lihin gacantayadaan ku fushani waa taasi waa gacantiina ku fushada weeyaan waa soo saa diyaar maniin waxaan isku nima soo taamaa maanta waxaa halkan isku kaaya keenay shilkii ka dhacay xariirad waxaananu rabnaa in ninka dilay naloo keeno xabaashana loo kala rogo haddii ay taasi dhici weydana nin walba tuuladiisu muu joogayo waxaanu samaynana annaga markaa waajibaadkiisa gaari sidaasaanaan isku ognahayna war soo sidaa iskuma ogin sidaa iyo waxaan isku ognahay dawladdana waanu ka warsuganaa waqtigii iyo muddadii ay qabsatay saacadaha hadhay saacadaha wixii ka dambeeya ciddaan ugu aaran iyo ciddaannu wax kaga qabanano annaga isweydiinana waanu ognahay